بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل كسو دوادا برنامجك ورarka maanta oo idinku soo gudbin doono dhacdooyinkii wararkii ugu dambeeyay ee dunida ka dhacay saacadihii aynu soo dhaafnay ilaa iyo daqiiqadan. Qodobada aan idinku hayno maanta barnaamijkana waxaa ka mid ah in ka badan 50 qof oo dhimasho dhaawac uu ka soo gaaray weerar culus oo loo adeegsaday diyaaradaha droniska oo Ukraine maanta ay ku qaaday gudaha dalka Ruushka xilli dagaalka u dhaceeya labada dhinac uu sii ballaaranayo. ugu yaraan 13 qof oo lagu dilay weeraro toogasho kala duwan oo ka dhacay magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika. Iran oo si rasmi ah markii ugu horeysay uga hadashay isbahaysiga Sacuudiga, Turkiga iyo Pakistan. Xuutiyiinta oo maanta diyaaradaha droniska ku weeraray magaalada Cadan ee Fariisinka u ah dawladda Yemen ee caalamku aqoonsan yahay. Pakistan oo wadahadal ku marti qaaday gudoomiyaha baarlamaanka iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Iran iyadoo ay socdaan dadaallo la doonayo in gobolka looga fogeeyo inuu ka dhaco dagaal. ugu yaraan 16 qof oo shaqaale ah oo ku geeriyooday dab ka kacay warshad ku taal magaalada Riyadh ee caasimadda boqortooyada Sacuudiga. dhammaan wararkan iyo qodobo kale oo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo dhaca intaynu hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka wararka maanta. daawadayaal si aad u heshaan wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ku soo gudbino haddii aad ku cusub tihiin baraheena bulshada ee kala duwan ama aadan hore ugu xirnaynina inagu soo biira waad ku mahadsantihiin daawashada iyo barnaamijka la socodkiisa. Muleed Xaaji Cabdi oo barnaamijka ila daadihinaya ayaa noogu bilaabaya wararka caalamka kuwooda ugu dambeeyay. Muleed mahadsanid Nimca. maanta waxaynu ku bilaabaynaa Koonfur Afrika halkaasi oo ugu yaraan 11 qof lagu dilay 3 weerar oo hubaysan oo kala duwan oo ka dhacay magaalada Cape Town ee dalkaasi sida ay shaaciyeen ciidamada booliiska dalka. booliiska Koonfur Afrika ayaa bayaan ay soo saareen waxay ku sheegeen in baaritaano ay ku bilaabeen weerarada oo ka kala dhacay deegaanada Khayelitsha, Langa iyo sidoo kale Guguletu ee magaalada Cape Town. sida ay booliisku sheegeen 3 nin ayaa toogasho lagu dilay deegaanka Lengalitu West ee deegaanka ka tirsan Khayelitsha. weerar kale oo ka dhacay wadada Awani Mandela ee deegaanka Kaolanga ayaa lagu dilay 5 qof oo kala ahaa 4 rag ah iyo haweeney. weerarka saddexaad ayaa isna waxa uu ka dhacay xaafadan rasmiga ah ee Barcelona ee Guguletu halkaasi oo lagu dilay 2 nin iyo haweeney halka 2 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen weerarkaasi. booliiska dalka ayaa waxay sheegeen in ciidamo dheeraad ah u direen goobihii ay weeraradu ka dhaceen iyo deegaano kale oo loo arko inay halis sare ee ka socoto ama ka jirto si loo xoojiyo ammaanka loogana hortago weerar kale oo horle oo ka dhaca qaybo ka mid ah wadanka. warbaahinta maxalliga ayaa sheegaysa in booliisku ay wadaan baaritaano lagu doonayo in lagu ogaado dadkii ka dambeeyay dilalkan iyo sababaha weeraradan ka dambeeya. magaalada Cape Town waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu da'da weyn Koonfur Afrika waana magaalo muhiim u ah dalka marka loo eego baaxadda iyo tirada dadka ku nool. waa tahay markana aynu u weecanno xagga wararkii ugu dambeeyay ee colaadda Ruushka iyo Ukraine. ugu yaraan 13 qof ayaa ku dhintay 39 kalena way ku dhaawacmeen weerar diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo Ukraine ay maanta ku qaadeen galada Nizhny-Kamisk ee wadanka Ruushka sida ay sheegeen mas'uuliyiinta dalkaasi. militariga Ukraine ayaa sheegay inay bartilmaameedsadeen warshada sifaynta shidaalka ee Tenego oo ay leedahay shirkadda Tatneft kuna taala gobolka Tatarstan oo qiyaastii 800 oo kiiloomitir bari kaga beegan magaalada caasimada ah ee Moscow. Ukraine ayaa sheegtay in dab uu ka kacay xarunta weerarkaasi kadib. baarayaasha Ruushka ayaa dhankooda waxay sheegeen inay fureen kiis dambiyeed oo ay weerarka ku tilmaameen inuu ahaa fal argagixiso iyagoo sheegay in goobo dad rayid ah ay degan yihiin lagu beegsaday oo la duqeeyay. madaxa gobolka Tatarstan Rustam Minikhanov ayaa ku dhawaaqay muddo borordiiqa
sida uu sheegay duqa Nizhnekamsky Radmir Balyayev. Ukraine ayaa bilihii u dambeeyey waxay kordhisay weerarada ay ku hayso warshadaha shidaalka ee Ruushka, taas oo qayb ka ah ololaheeda ka dhanka ah kaabayaasha tamarta ee waddanka Ruushka. waa hagaag haatanna aynu u leexano wararkii macluumaadkii ugu dambeeyey ee colaadda bariga dhexe. Iiraan ayaa markii ugu horeysay waxa ay ka hadashay isbahaysiga saddex geesoodka ah ee gobolka dalal ka mid ah ay kala saxiixdeen. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iiraan Ismaaciil Baqai waxa uu sheegay in heshiiska difaaca ee ay kala saxiixdeen Sacuudi Carabiya, Turkiga iyo Bakistaan uu muujinayo isbeddel ku yimid sida dalalka gobolka ay u arkaan damaanadaha amni ee Mareykanka. Baqai waxa uu sheegay in dhacdooyinkii 2 iyo 3 sano ee la soo dhaafay ee dalalka gobolka tusayaan in ammaanka aan laga iibsan karin quwadaha dibadda. Waxa uu xusay in Tehran aysan ka walwalsanayn heshiiska cusub ee dhex maray dalalkan, maadaama Iiraan ay xiriir qoto dheer oo taariikhi ah iyo mid dhaqan ay la leedahay Bakistaan, Turkiga iyo Sacuudi Carabiya oo uu dhex maray heshiiskan. Afhayeenka ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay xaaladda marinka Hormuz, isagoo ku nuuxnuuxsaday in Iiraan iyo Cumaan ay ka wada hadlayaan marin maraakiibta loo asteeyo. Wuxuu ka digay in Hormuz aysan dib ugu noqon doonin marinada ku yaala sidii horey ay ammaanka ugu ahaayeen haddii Mareykanku uu sii wado. Waxa uu ku tilmaamay siyaasadda xanibaadda badda, isagoo sheegay in Tehran aysan hadda wadahadal toosa kula jirin Washington. Dhanka kale, afhayeenka wasaaradda amuuraha dibadda ee Iiraan wuxuu tibaaxay in Ukraine Iiraan ay ka dalbatay magdhow la xiriira weerar lagu qaaday markab ganacsi oo Iiraan ay leedahay. war kale oo arrimaha la xiriira Bakistaan ayaa wasiirka arrimaha dibadda Iiraan ee Abbas Araghchi iyo gudoomiyaha baarlamaanka ee dalkaasi Maxamed Baqir Qalibaf waxay ku ansoontay inay booqasho ku tagaan magaalada Islamabad si ay wada hadallo ula yeeshaan mas'uuliyiinta waddanka Bakistaan, sida uu sheegay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iiraan Ismaaciil Baqai. Baqai waxa uu xusay in labada mas'uul ay booqashada ku tagi doonaan Bakistaan waqtiga ku habboon ee qorshuhu yahay, balse ma uusan faahfaahin xilliga rasmiga ah ee safarkooda. Afhayeenka ayaa waxa uu sheegay in booqashooyinka labada dhinac iyo isdhaafsiga wafdiyadu ay qayb dabiici ah ka yihiin xiriirka sii xoogeysanaya ee labadan dal ee dariska ah ka dhexeeya. Bakistaan ayaa horay door dhexdhexaadin ah waxa ay uga qaadatay xiisadda u dhaxaysa Washington iyo Tehran, iyadoo dadaal ku bixisay sidii loo dejin lahaa xaaladda. Waxaana gacan ay ka geysatay dhexdhexaadinta xabad joojintii la gaaray bishii Abriil iyo heshiis horodhac ah oo la gaaray bishii Juun. Hayeeshee heshiiskaas ayaa burburay bishii hore ee Juulay, waxaana labada dhinac dhex maray weeraro socday ku dhowaad 2 toddobaad ka hor inta uusan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump si lama filaan ah u joojin duqeymaha, iyadoo ay jireen warar sheegaya dadaallo lagu doonayo in xal laga gaaro colaadan ka aloosan gobolka bariga dhexe. waa tahay aynu markan eegno qodobada kale ee ku jira barnaamijka wararka maanta. ugu yaraan 16 shaqaale ajaanib ah oo u dhashay waddanka Bangladesh ayaa ku dhintay dabaxadii ka kacay warshad soo saarta fadhiyada guryaha oo ku taala magaalada Riyadh ee waddanka Sacuudi Carabiya, sida ay sheegtay wasaaradda daryeelka muwaadiniinta Bangladesh ee dibadda. wasiirka lagu magacaabo Ariful Highway ayaa waxa uu murugo ka muujiyay dhimashada shaqaalaha, isagoo ku tilmaamay dhacdadan musiibo xanuun badan. wasaaradda ayaa sheegtay in 10 ka mid ah dadka dhintay ay ka soo jeedaan deegaanada loo yaqaano ama lagu magacaabo Yangon, halka 6 kalena ay ka soo jeedaan Nature iyo Rajshahi. wasiirka ayaa waxa uu sheegay in shaqaalaha dibadda ay door weyn ka qaataan dhaqaalaha Bangladesh horumarintiisa, isla markaana dhimashadooda ay tahay khasaaro weyn oo dalka soo gaadhay. dhanka Yemen aynu eegna ciidamada dowladda Yemen ee caalamku aqoonsan yahay ayaa sheegay inay maanta ka hortageen dhowr dayuuradood oo ah kuwa aan duuliyaha lahayn oo sida hadalka loo yiri cadowgu uu ku soo weeraray magaalada, iyadoo la isku dayay inay ku soo dhawaadaan xarumo muhiim ah oo ku yaala magaalada Cadan ee dhacda koonfurta Yemen.
ciidamada koonfurta ee uu hogaamiyo xubin ka tirsan golaha hoggaanka madaxtooyada cabduraxmaan al-muxarami ayaa warkan ku sheegay qoraal lagu daabacay baraha bulshada ee internetka. ciidamada ayaa sheegay in dayuuradaha droniska isku dayeen inay gaaraan dhowr xarumood oo muhiim ah iyo goobo adeegyada bixiya oo ku yaala magaalada Cadan. ma aysan jirin ilaa iyo hadda cid sheegatay mas'uuliyadda weerarada. sidoo kale ciidamadan ma aysan sheegin cidda ka dambaysay weerarada, laakiin waxay ku soo aadayaan iyadoo xuutiyiintu weerar ay ku hayaan deegaano ku yaal waddanka Yaman, gaar ahaan dhanka koonfureed oo ay gacanta ku hayso dowladda caalamku aqoonsan yahay. hagaag wararkaasna intaa aynu kaga gudubno. wararka kale ee soo baxaya dhanka bariga dhexe haddaynu dib ugu laabanno colaadda Maraykanka iyo Iiraan ayaa waxaa ka mid ah taliska dhexe ee ciidanka Maraykanka ee CENTCOM ayaa waxa uu sheegayaa in ilaa iyo intii la bilaabay go'doominta ka dhanka dekedaha Iiraan ilaa iyo 50 markab in ay dib u celiyeen isla markaasna ay ka horjoogsadeen inay ka baxaan ama ay tagaan ama u gudbaanba dekedaha waddanka Iiraan. Iiraan ayaa ku andacoonaysa iyaduna in ay marinka Hormuz sii xiri doonto ilaa iyo inta Maraykanka go'doominta uu ku hayo dekedaheeda. waa hagaag daawadayaal goor waxaan gudbi doonaa xubinta falanqaynta ee barnaamijka oo ku eegi doona xaaladihii ugu dambeeyay ee bariga dhexe iyo arrimaha xasaasiga ah ee gobolka ka soo kordhay. balse marka hore aynu ku hakano qadar xayeysiin ah. dugsiga casriga ah ee Daarul Hijra Islamic Online waxa uu kugu bishaaranayaa goob kasta iyo goor kasta inaad hab online ku baran karto Quraanka Kariimka, higaada iyo culumta shareecada, kama marna luqadda Carabiga iyo tarbiyada awlaadda. wixii faahfaahin kala xiriir telefoonka shaashada kaaga muuqda. qurbo-joogta Soomaaliyeed ee ku nool qaaradaha adduunka sida Yurub, Ameerika, Aasiya, Australia iyo Afrika waxay hadda kadib si dhib la'aan ah lacagaha ugu soo diri karaan dalka Soomaaliya iyagoo adeegsanaya xawaalada caalamiga ah ee Ria Money Transfer, kuna soo diraya adeegga casriga ah ee eBesa oo ka hawlgala guud ahaan Soomaaliya, hoos tagana bangiga caalamiga ah ee IBS. eBesa goob kasta iyo goor kasta. soo dhawaada mar kale daawadayaal, weli waxaad la socotaan oo si toos ah u daawanaysaan barnaamijka wararka maanta oo idinkaga imaanayo sidaasheena koowaad iyo labaad. barnaamijyadana waxaad ka heli kartaan baraha internetka ee kala duwan sida Facebooka, YouTubeka, Twitterka iyo Telegramka. idinkoo warar degdeg ah, macluumaadyo kale iyo faallooyinka akhrisan kara oo ka heli kara bogga internetka ku leenahay ee www.hbnonlinetv.com. ku xirna HBN oo ka dhigo weelkaaga wararka. hagaag aynu markan xagga falanqaynta iyo Mawlid u weecanno. Mawlid, inkastoo maalmo ka hor aynu warkan sheegnay HB ahaan, haddana maanta waxaa si rasmi ah loo shaaciyay in Muxsin Razai loo magacaabay xogayaha golaha amniga qaranka Iiraan. bal magacaabistani si guud maxay ka dhigan tahay? nimca runtii magacaabista Muxsin Razai waxay leedahay dhowr waji oo kala duwan. wajiga ugu muhiimsan wuxuu yahay in ninkan si toos ah hadda uu u magacaabay hogaamiyaha sare ee waddanka Iiraan Mujtaba Khamenei. ninkan ka horreeyay Maxamed Baaqir Zulkhadar waxaa magacaabay madaxweyne Mas'uud Pezeshkian markii la dilay Ali Larijani. marka waa garan kartaa muhiimadda ay leedahay. waxaa kaloo arrintan lagu macnayn karaa inay leedahay weji ah siyaasadda waddanka Iiraan iyo go'aan ka gaarista intuba inay gacanta u galayaan xubnaha lagu tiri dhiigooda inuu kulul yahay ama mowqifkooda uu adeeg yahay. Muxsin Razai waa nin ka mid ah ragga aadka ugu dhow hogaamiyaha sare ee Iiraan. waa nin gudaha waddanka aad looga yaqaan, isla markaasna wadamada gobolka iyo caalamka oo dhan si weyn looga yaqaan, ilaa ay gaartay Maraykanku inay ku soo rogaan cunaqabatayn toos ah oo isaga ka dhana. waa nin markaa la oran karo magacaabistiisa hadda waxay ka turjumaysaa wadaxaajoodida Maraykanka lala gelayo iyo xaaladda Iiraan iminka ay ku sugan tahay. nin hore u qaadi kara, inkastoo nin da' uu yahay oo 70kii dhaafay, laakiin haddana khibradiisa dhanka militariga iyo dhanka siyaasadda ayaa waxay